wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta mudane Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geese ayaa booqasho rasmi ah ku joogay maalmihii la soo dhaafay dalkani Turkiga. Booqashadaani ayaa timid kadib markii casuumaad oo ka helay dowladda walaalaha aan ahay ee dalkani Turkiga, taasi oo uu kula kulmay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dalkani Turkiga. Ujeedka socdaalkiisa uu ku imaaday dalkani Turkiga ayaa ka warbixiyay la taliyihiisa Maxamuud Xaaji Xasan. marka runtii waxaan la kulannay dad aad u fara badan. wasiirku waxay kala sarkeen wasiirkiisa housing-ka ama guryaha waddankan Turki oo arrinta aad uga wada hadleen. waxaa lagu heshiiyey in arrinta hore loo dhaqaajiyo oo la isugu yimaado kulan dambe oo labada waddan kala seexdaan heshiis ku saabsan guryahaas 10,000 ah oo loogu talagalay dadka danyarta ah. gabagabadii ayaa ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta mudane Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geese. sidii maaragtay loo dhaqaajin lahaa arrintii ku saabsanayd madaxweyne Erdogan oo u ballan qaaday dadka Soomaaliyeed in loo helo guryo maaragtay qiimo jaban ama waxa loo yaqaano low cost housing waxa maaragtay loo yaqaano waxaan la kulannay oo kulamadaasi maaragtay ugu muhiimsanaa oo aan la yeelanay ninka maaragtay wasiirka deegaamaynta iyo magaaleynta Professor Dr. Maxamed Amiin. runtii qalbi wanaagsan iyo niyad wanaagsan ayuu maaragtay kulankeenu ku dhamaaday asaga oo maaragtay wasiirka haddana isla kulankeenii kasoo qayb geliyay oo noo suurageliyay inaan kulan aan la yeelano ninka madaxda ka ah hay'adda u xilsaaran dalka Turkiga guriyeynta ninka lagu magacaabo Mosjalik oo madaxa ugu sareeya ka ah dawladda maaragtay Turkiga hay'adda guriyeynta u xilsaaran. runtii muddada 3 sano ah waxa dib u dhaca ku riday arrintaas dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliya u ballan qaaday iyo waxyaabihii sababay ayaanu soo ogaanay. waxaanu ku gorfaynay sida arrintaasi aan uga gudbi lahayn. waxa kaloo jiray kulamo muhiim ah oo aan la yeelanay hay'adda maaragtay Turaab madaxdeeda ugu sareyso. hay'adda Turaab waa hay'ad maaragtay u qaabilsan iskaashiga dawladaha Carabta iyo Turkida arrimaha maaragtay dib u dhiska sanad walba maaragtay bisha 11aad dhamaadkeeda la yeesho. runtii safarku wuxuu ahaa safar guul ah. arrimahaasi ayaana la Cabdiqaadir Jookar, raadiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed, waddanka Turkiga, caasimadda Ankara.